waa tahay dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta ila tali ee barnaamijka dhibanaha jacaylka toddobaadkan waxaa xubinta ila tali marti ku ah Siham Daahir oo iyadu ah gabar ku nool magaalada Nairobi ee dalkan Kenya isla markaana ka sheekeynaysa qiso jacayl oo iyadu ku dhacday rabtana in markaa dhageystayaasha ay ka tala siiyaan marka hore Siham Daahir ku soo dhawow xubinta ila tali ee barnaamijka dhibanaha jacaylka oo aad marti ku tahay waan dhawahay Farxiye Cabdulla Muumin oo ku maadsan tahay barnaamijkan ila tali sidaad igu soo dhaweysay marka waxaan rabaa inaan halkan ka sheego qiso jacayl oo aniga ay qabsatay waxaan joogay magaalada Muqdisho waxaan la noolaa familkayga wiilka qisadan naga dhaxayso asagana wuxuu joogay magaalada Muqdisho inkastoo aan isku degmo ahayn si kastaba wiilkaas aad ayuu ii jeclaa marka waxaa jirtay marar badan oo waxyaabo xiriir ugu soo qaado anigana kamaan diidin waan la waday wuxuu ahaa ganacsade wax walba oo u baahanahay waan ka heli jiray sida shoppingka dharka iyo wax walba aan u baahanahay aniga wiilkaas baa jeclay laakiin asigu wuu jeclaa wili si xad dhaaf ah marka muddo kadib wuxuu iga codsaday arrimo guur anigana runtii markaas uma soo jeedin guurkiisa waa tahay intaas kadib maxaa dhacay waxaan ku xujeeyay inaan jeclahay aniga qof Yurub jooga ama America aan u baahnayn waqtigan qof ila jooga inaan guursado oo isku magaalo aad joogtaan bes wiilka asigu wuxuu ahaa wiil ganacsade ah ma u fududeen inuu Yurub aado laakiin wuxuu ugu dhahay adiga dartaada wax walba waan u sameyn karaa bes wiilka sida loo joogay muddo kadib wooba oo baxay wuxuu tagay Jarmalka ganacsigiisina wuu xiray sidoo aanay u heli lahaa waxaad ii sheegtay in wiilkan uu aad ku jeclaa daraadaan oo Yurub u tagay ganacsigiisina uu burburiyay sababteedana ay ahayd in adigu aad ku xujeysay in Yurub uu taga kadibna guurkaada ogolaanayso xiriirkiina sidoo noqday maadaama Yurubtii uu tagay adiguna aad ku xujeysay waraa waxa loo dhahay laba kala barsa kala warla aniga igama ahayn tagitaankiisa jacayl aan u qabo laakiin waxaan ku meeshaas ku baabi'inay xiriirka ahaa guur oo iga dalbaday guurkeena marka asagana uma maleynaynin inuu sidaas fudud oo ku baxaayo balse wayba dhacday tan kale jirta waxay ahayd aniga uma joojin bixitaankiisa oo aniga ma aan jeclayn oo isaga ku jeclaa marka aniga wiil kale ayaan xiriir iskala sameystay oo xiriir naga dhaxeeyay أحدي روحض ميلا ديغتي أمركي سجبي أديبو داعدا وحن برشي إيدي حصوص كوغو أغادبا إيمانا خمبينيني كو إلاوي مانكبا كو إلاوي مانكبا waqti ayaa ka soo wareegtay maqnaashihiisa anna waxaan iska sii watay xiriirkayga waa jirtay waqtiyo badan oo soo wici jiray laakiin lambarka oo ugu yaqaanay ayaan iska bedelay markuu iga bediyay wicitaanka muddo ayaa ka soo wareegtay maalmaha kamid ah anigoo guriga ka maqan ayaa la ii sheegay inuu raadinayay runtii maalintaas wixii ka dambeeyay baqdin ayaan dareemay waan cabsaday waxaan gaaray heer aan iska qariyo bes wuxuu gaaray heer oo waalidkay ku dul ooyo oo dhaho yacni gabadhiina ayaan rabaa waalidkaygana waxay ku dhaheen gabadheena yacni haddaa rabtid waa inaa ayada la heshiishaa aan heshiis aad adinka aad isku ogtihiin aad noola timaadeen anaga kuma diideeno
waxaad ii sheegtay in waqti badan uu gurigiina kusoo laalaabtay waalidkaaga uu ku dul ooyey isagoo sheegaya inuu aad kuu jecel yahay oo uusan kaa maarmin adiguna waxaad ii sheegtay inaad ka dhuumanayso baqdin aad muujinaysay maxaa dareenoo xilligaa kugu dhashay ma la kulantay xaal siduu noqday haa farxiyo way jirtay dareen bini'aadamnimo ah inaan ugu damqado laakiin ma ahayn mid aniga aan dareen caadi jecel ama mid guur inaan mustaqbalka leeyahay laakiin waan u damqanahay si badan aadnimo ugu danqanahay oo naxariis yar waan dareemahay xataa waxaa jirtay habeeno badan inuu banaanka igu sugo in la dhaho Sihaan way maqan tahay oo kale oo banaanka iska fadhiisto si oo aniga ii sugo habeenada kamid waxaa dhacay roob badan ayaa da'ay asagana waxaa lagu dhahay Sihaan ma joogto sidaas ayuu banaanka u fadhiyay waan fiiriyay xataa waan hubiyay daaqadan istaagay inuu joogo ma uusan bixin cabaar ayuu joogay xataa nafsadiisa uma baqi jirin ayadoo xaalad amni darro ay Muqdisho ka jirto oo 8 saac habeenimo habeen saqdhex u socon jiray si oo aniga ii arkaamo ii sugo habeenadaas kadib wuxuu dareemay inaan aniga rabin oo wax jecel aan u qabin oo waxaas dhan ay kaligiis ku yihiin marka nin rag oo ahaa asagana go'aan ayuu qaatay si oo aniga go'aan iga qaato nolosheyda oo santi dambe ugu soo baahanin ama soo xiriir dambe oo halkaas ku dhamaado bes waxa la ii sheegay inuu wiilka xanuunsaday si oo anigana ilama socodsiinin imana u soo raadin mar dambe oo xiriirkiisa halkaas ayuu ku ekaa kadib wuxuu gaaray heer oo xanuunsado oo marba marka dambeeso oo kasii awoodiisa ay sii daciifto kadib isbitaal ayaa loo qaaday gabdhahan saaxiibanahay ayaa isbitaalka booqday waxay ii sheegeen xaaladda caafimaadkiisa inay aad u liidato oo magacayga ku hadaaqayo mar walba oo Sihaan dhahayo runtii arintaas markay aniga ii sheegeen aad ayaan uga calool xumaaday saaid ayaan u murgay waxaan dareemay inaan qalad weyn geystay oo aan qof dhan sariir soo seexiyay agtada anoo anigu u xiisay inta dumarnimo xiishaday xogtada maxaan waraystay agtada anoo anigu u xiisay inta dumarnimo xiishaday xogtada maxaan waraystay حركة كلا
kale caashiqu xuruubo xujada timid baan ku diiday wallaahi aad baan uga xumaaday waana ka xumaa qof dhan inaan sariir seexiyo wallaahi aad iyo aad ayaan uga xumaaday inaan qof bini'aadan aan sidaas u galo laakiin wayba dhacda Soomaan runtii aad ayaan u murugooday inaan qalad ka galo qof i jecel oo darteed sariir u fuulay marka aad ayaan uga xumahay waan dareemay inaan qalad galay maalmo kadib waxaa dhacday in waalidkiisa iyo walaalihiisa aniga i raadsadaan runtii waalidkayga aniga way ii cabsadeen maadaama walaalihiisa meel liiga geeyay la waayay oo maxay leeyihiin marka iyaga waxay dhahayaan gabadha saan wiilkan u gasho ma dhaafeena camal ayadana sariirtu waa inay la kortaa xataa inay nafsadeeda kow iga siiyaan ayayba damceen xataa marka waan joogi waayay magaalada xataa waan rabay inaan booqdo laakiin aniga waalidkay way ii cabsadeen waxay ugu dhaheen meeshaan oo idil iska gaba tagbo intay waxaan anaga dejinayne marka sidaas ayaan Nairobi hadda u imaaday Sihaam waxaynu soo gaarnay gabagabada xubinta ila tali ee barnaamijka dhibanaha jacaylka dhageystayaasha ee kula socda oo sheekadan iyagu hadda dhageysanaya waxay sugayaan waxa ay kala talinayaan maxaad rabtaa marka in lagala taliyo waxaan rabaa dhageystayaasha ku taxan ila tali inay igala taliyaan wiilkaas maadaama oo jeclaay oo aniga darteed ganacsigiisii u baajiyay oo Yurub darteed u tagay oo ugu soo noqday oo halaas rafaad darteed u maray anigana aan xaalad amni darro darteed aan uga soo tagay Muqdisho maadaama aniga dadkiisiba ay raadsanayaan oo maanta meesha lagu arkay leedilaayo marka ma u noqdaa oo hadda ma u laabtaa mise waxaan dhan waan iska iloowayo hore waan u socdaa ila soo taliya marka taladiina ayaan sugayaa guud ahaan dhageystayaal inta ayaan kusoo gabagabeynayaa xubinta ila tali ee barnaamijka dhibanaha jacaylka oo toddobaadkan ay marti ku ahayd Sihaam Daahir oo iyadu ka sheekeynaysay qiso jacayl oo iyada soo martay anigoo Farxiye Cabdalla Muumina ayaa xubinta ila tali idin la socodsiinayay toddobaadkan intaynu mar kale kulmayno nabadgelyo